iyada oo shalay maxkamadda sare ee Soomaaliya ay ku gacan saartay dacwadii uu Fahad Yaasiin u gudbiyay ee uga gudbiyay guddiga doorashooyinka ayaa haddana waxaa jira 4 wado oo u furan Fahad Yaasiin kadib go'aankii ay gaartay maxkamadda sare ee Soomaaliya. maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa go'aan lama filaan ah oo ay qaadatay ku diiday qaadista dacwadda kiiska kursiga la xayiray ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee Hob 86 taasi oo meesha ka saartay rajadii ugu dambeysay ee Fahad. maxkamadda sare ayaa go'aankeeda sabab uga dhigtay in aanay awood lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhasha go'aanada maamul ee doorashada dadban ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxayna aqbashay hor istaaga xafiiska gariiqaanka guud ee dawladda oo matalaya guddiga doorashooyinka heer federaal. go'aanka ayaa waxaa saxiixay 3 garsoore ee dacwadan dhageystay kuwaasi oo kala ah gudoomiyaha maxkamadda sare Baasha Yuusuf Axmed, garsoore Cabdulcasiis Maxamed Yuusuf iyo garsoore Saalax Sheekh Ibraahim Dhiblaawe. Fahad Yaasiin ayaa sidoo kale aqbalay go'aanka isagoo yiri markii aan si qoto dheer uga baaraandagay qaraarka ay soo saareen garsoorayaashu waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago inaan ixtiraamayo qaraarka ka soo baxay maxkamadda sare oo ah hay'adda ugu sarreysa ee garsoorka dalka kaasi oo ay ku sheegeen inaysan awood u lahayn go'aanka gaarista gal dacwadeedka. sidaas awgeed maxay yihiin wadooyinka u furan Fahad Yaasiin oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo? arinta koobaad waa in uu ku noqdo guddiga xalinta khilaafaadka doorashada. 20 bishii Febraayo ayaa Fahad Yaasiin kursigiisa xildhibaanimada golaha shacabka lagu doortay magaalada Beledweyne kaasi oo sida xilligaasi uu sheegay uu kala kulmay loolan adag. hase ahaatee durbadiiba guddiga doorashada heer federaal ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay doorashada kursigaasi taasi oo dhalisay muran weyn. guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa dhankooda sheegay inay fasaxeen kursiga Fahad doorashadiisuna ay ahayd mid waafaqsan habraacyada loo asteeyay doorashada. waxaa xusid mudan go'aanka guddiga khilaafaadka ma ahayn mid ku yimid cabasho uu u gudbiyay Fahad Yaasiin. maxkamadda sare ayaa shalay sheegtay in Fahad Yaasiin ay ahayd in dacwadiisa uu u gudbiyo guddiga markii la laalay doorashadiisa. markii uu isqabqabsigu gaaray ilaa maxkamadda sare qareenada guddiga doorashada heer federaal waxay ku doodayeen in guddiga khilaafaadka uu ku degdegay talaabadiisa uuna go'aan ka soo saaray xilli uusan weli u tagin siyaasiga dooda qabay oo ah Fahad Yaasiin. mas'uuliyiinta guddiga doorashada heer federaal ee magacooda loo soo gaabiyay FID ayaa qudhooda lagu dhaleelay in xubno ka mid ah guddigooda ay goobjoog ka ahaayeen meesha ay ka dhacday doorashada Fahad oo markaasi ay ku qanacsanayeen sida ay wax u socdeen balse markii dambe la yimaaday arrimahaasi ka duwan. arinta labaad ee Fahad Yaasiin u furan waa in kiiska loo gudbiyo madasha wadatashiga qaran. sida ku xusan habraacyada doorashada haddii muran uu ka dhaco doorashada waxaa tallaabo ka qaadaya guddiga xalinta khilaafaadka doorashada. haddii xaaladdu ay iyaga ka soo gudubto waxaa go'aanka gaarista iska leh madasha wadatashiga qaran oo loo gudbinayo. xubnaha uu ka kooban yahay golaha wadatashiga qaran waxaa ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ah. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa uu ka baxay golahan balse waxaa dawladda hadda ku matala ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. laba ka mid ah maamul goboleedyada ayaa loo tiriyaa in aysan la dhacsanayn Fahad Yaasiin kuwaasi oo kala Jubbaland iyo Puntland halka 3 kale oo kala ah Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed lagu tiriyo in ay u janjeeraan dhinaca Fahad Yaasiin. waxaase aan meesha ka marnayn in ra'iisul wasaare Rooble uu miisaan ku leeyahay madashan. go'aanka kama dambaystaha ee la xiriira khilaafa kursiga Hob 86 waxa gaari kara madasha wadatashiga qaran oo ah halka ugu sarreysa iyadoo la og yahay in mashquul badan uu ka jiro arrimaha doorashada daba dheeraaday. haddana la isku dayo in la dadajiyo waxa ay u badan tahay in aan lagu mashquulin hal kursi oo kaliya, laakiin hadiiba ay dhacdo in la horgeeyo ma cadda sida ay ku xallin karaan. waxaan filayaa in madasha wadatashiga qaran uusan saaxiibo badan ku lahayn Fahad Yaasiin maadaama ay hoggaankeeda qayb ka yihiin ra'iisul wasaaraha oo aad uga soo horjeeda iyo 2 maamul goboleed oo uu kaashanayo ayuu yiri Daahir Qoriyow Isaaq oo ah falanqeeya ka faalooda arrimaha gobolka. arinta saddexaad ee u furan Fahad Yaasiin waa inuu aqbalo ku celinta doorashada kursiga maadaama ay guddiga doorashada heer federaal dhankooda maxkamadda uga guuleysteen Fahad Yaasiin. waxa wadooyinka u furan hadda ka mid ah in uu iska aqbalo sida ay wax u wadaan sidaasna uu mar labaad ugu soo diyaar garoobo ololaha doorashada ku celiska. waxa la xasuustaa in dhawaan uu khilaaf weyn ka dhashay natiijada 3 kursi oo lagu soo doortay maamul goboleedka Koonfur Galbeed kuwaasi oo ugu dambeyn lagu heshiiyay in 2 ka mid ah sidooda lagu fasaxo mid kalena doorashadiisa lagu celiyo. hase yeeshee su'aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah in haddii doorashada lagu celiyo ay ergada dooranaysa xildhibaanka iyo ugaasyadii soo xulaya odayaasha ay noqon doonaan isla kuwii hore.
arrinta afraad ee Fahad Yaasiin u furan waa inuu arrintan oo dhan ka haro. in muddo ahba waxaa la isla dhaxmarayay in Fahad Yaasiin uu u hanqaltaagayo kursiga gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka, sidaasna ay ahayd sababta uu xildhibaannimada u raadinayay. wax ka yar hal isbuuc ayaa hadda ka harsan doorashada gudoonka baarlamaanka kadib markii la dhaariyay inta badan xildhibaanadii la soo doortay. waxaa suurtagal ah in haddii doorashada kursiga Hob 86 lagu noqdo ay hawshaasi kadib marto xilliga gudoonka la dooranayo. taasi waxay sababi kartaa in Fahad uu isaga haro doorashada kadibna uu xooga saaro dadaalka lagu bixinayo ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo. dad badan ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed ay sala ku hayaan sababta uu muranka u galay kursiga uu u tartamayay Fahad Yaasiin. waxaa ka mid ah in laga hor istaagayo suurtagalnimada inuu u tartamo xilka gudoomiyaha golaha shacabka sida uu qabo Daahir Qoryow, balse sidoo kale waxa uu sheegay in arrintu ay xitaa taasi ka sii weyn tahay. siyaasadda ugu weyn ee hadda socota waa in Fahad Yaasiin laga hor istaago kursiga afhayeenka baarlamaanka, laakiin taasi oo kaliya maaha. Fahad waa nin saameyn ku leh siyaasadda isagoo aan xubin ka ahayn baarlamaanka ahayna madaxweyne. marka xitaa xubinnimadiisa baarlamaanka ayaa culays weyn ku ahayd mucaaradka ka soo horjeeda madaxweynaha iyo isaga siyaasadiisa. ma aha oo kaliya in laga daahinayo kursiga uu u hanqaltaagayo, waxaase macquul ah in laga daahinayo doorashooyinka hadda socda si isaga oo gudaha ku jira uusan uga dhex ololayn baarlamaanka, ayuu yidhi Daahir Qoryow. haddaba muxuu uga duwan yahay kursiga Fahad Yaasiin kuraasta kale? waxaa muddooyinkii u dambeeyay isa soo tarayay hadal haynta kursiga uu ku soo baxay taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ahna la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. inta aynan u gudagalin jawaabta su'aasha aan kor ku xusnay, aan dib u milicsano doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo sidii ay ku soo baxeen xubnaha baarlamaanka la dhaariyay. kuraasta ilaa hadda la xalaalay doorashadooda ayaa waxaa qaarkood ama aan dhahno intooda badan ay ku soo baxeen hanaan ka fog heshiisyadii iyo habraacyadii lagu heshiiyay doorashada, isla markaana lagu soo saartay shakhsi jacayl iyo weliba dana siyaasadeed oo gaar ah. sidii la fahansan yahay kuraasta la doortay ee mudanayaasha dhawaan la dhaariyay ayaa waxay intooda badan doorashada wax badan aysan ka duwanayn magacaabis oo kale, iyadoo awoodda u weyn ay ku lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada oo iyagoo aan marnaba meel ka soo gelin doorashada kuraasta golaha shacabka. marka la eego marxaladaha kala duwan ee uu soo maray kursiga Fahad Yaasiin ee ay qabaan dadka qaarkii inuu yahay xaaraan, ilaa iyo hadda ma jirto caddayn la taaban karo oo uu kaga duwan yahay kuraasta kale. haddaba tan kaliya ee ilaa iyo maanta lagu haysto kursiga Fahad Yaasiin ayaa ah sida la fahansan yahay mid siyaasadeed oo salka ku haysa xiisada ka dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyo saaxiibka koobaad ee madaxweyne Farmaajo oo ah Fahad. marka laga yimaado shakhsiyadda Fahad iyo ficiladiisa intii uu joogay xilka ugu sarreeya ee NISA, waa mudano dooran oo ku soo baxay hanaan aan ka duwanayn kuwa ay inta badan ku soo baxeen xildhibaanada golaha shacabka. waxa ayaan darro weyn ah in guddiga fiid uu xalaaleeyo kuraas hanaankooda doorasho uusan ka duwanayn midka Fahad Yaasiin, isla markaana uu awoodiisa u adeegsado dana siyaasadeed oo gaar ah.